qofka muslimka dhaqan kiisu uu ka duwan yahay qofka muslimka ahayn ka muslimka ahayn waxyaabaha isaga caadi u ah oo mesela dhalinyaradood iyo waxyaabaha ku saabsan oo kale yani ay hawadooda raaceen oo say rabaan ay u dhaqmayaan oo haday rabaan jidka isku qabsanayaan oo ay gacmaha is jiidayaan oo is dhunkanayaan oo haday rabaan si rabaan isku sameynayaan hadaba ay is xoogaynin oo is ogol yihiin baa wax dhiba loo arkeen culture saa u samaysan inagu kaamilniin inagu ummadan waa ummad muhaafid ah waa ummad diin leh waa ummad dhaqan leh wixii noocaas oo kala qariib ayuu inagu yahay marka hadii la soo galay wax qariib inagu ah dadku waa inay arintaasi yani raayul caamku waa inuu diido arintaas ayada ficlan dareen wuu jiraa oo hadda mesela magaalada Muqdisho meelaha qaarkood waxa laga sheegayaa yani dhalinyaro si aan shuxuma ah oo asluubta wanaagsan ee dhaqankeena iyo diinteena aan u dhaqmaynin oo mesela xeebaha oo kale yani si yani qaaqaawani ah ama isqa qabsasho ah ama noocaas oo kale oo dad badan yani hal qof ma laba qof ma ay ka sheekeynayaan ilaa marka dambe ay dadka qaar u qaataan inay bisan caadi iska tahay oo bilowgii hore iyo dadku dareen waxa ku jira marka arkaan qof yani aan dhaqankii ilaalinaynin ama ummadii say diinteeda ahayd aan u ilaalinaynin dadku ay markiiba soo tufi jireen oo diidi jireen hadii laakiin wixii la isku wadwado oo lagu celiyo marka dambe caadi iska noqonaysa hadda koora waxa la yiri islaana wiil oo ninkeedu dhalay oo laakiin bax kale ya odayga intuu dhintay ya waxay tiraan isguursano markaas wuxuu ku leeyahay san isguursanayna ma banaana sharcan wala tankihu ma nakaha abaakum min an-nisaa quraanka saas aaba islaan uu guursaday hooyay noqotay ma aan isu guursanayna dadka nala yaabay wax jira ma waxaas waxay tiraahdo wax ma ogid anaa ku sheegay tusaalan ku siina neef xoole ay maqaarka ka bixis markaas ay tir ceelka laga soo waraabiyo neef oo maqaar aan lahayn muxuu noqonaa neefka suuqa kana wax guduudan oo maqaar aan lahayn hilib socdo waay ila lama gowric uu nool yahay neefki maalinka koowaad neefka ceelku u imaaday dadkii oo dhan daawashay ugu soo dhaqaaqeen war kaalaya maanta wax la yaab la dhacay maxaa jira neef aan maqaar lahayn oo socdo oo biyo la cabsiinayo oo ceelka loo soo arooriyay ayaa meesha intaan dadkii oo dhan way yaabeen waa la iswaraystay war neefkan muxuu yahay war oo maqaarka laga bixiyo oo san yani say ula yaabeen si la yaab la yahay bas dhimale qofkii wata neefka uu iska soo ceshtay markay dadku arkeen war ana watee maqaarkan ana ka soo bixiyay maxaa ka rabtaan waa ka uu nool yahay muna dhimanay biyaan rabaa inaan siiyo biyaha iyo cabsiye haye biyihii waa cabay neefka uu ka haystay uu la hoyday maalinkii labaad ayuu haddana soo celiyay ceelkii neefkii oo sidii oo maqaar aan lahayn dadkii in badan oo shalay aragtay waxba dan kama leh qofkii shalay aan arkin oo maanta ceelka ugu horeyso ka un baa yaabay war waxan muxuu ahaa war wax moog shalay la keenay kana wax cusub ma shalay inta joogay bas haddana waa la celiyay neefka maalin saddexaad iyo maalin afraad markii la soo arooriyay maalmihii damcid fiirsaa la waayay maxay dadku dhan way arkeen qof kastoo arkay muxuu leeyahay allah maqaar laawihii waaya kan iska dhaafay magaca leeyahay waa kii maqaarka laga bixiyay caadi uu iska noqday waxaan ka wadaa macnaha ummadana Soomaalida dhaqamada banaanka inooga imaanaya oo midna dhalinyarada xeebaha markay joogaan ay gacmaha isqa qabsanayaan ama waxyaabahaas ay sameynayaan marka bilowga arrimahaas la arkaayo waan la yaabin ruuxan maxay ahaayeen ma banaanka ka imaadeen oo saanay arki jireen laakiin waxayna garanaynin xeebaha oo la jiijifanayo oo banaanka Yurub laga imaanayo dadkaas waxa ku yar baan qoraxda arkaynin qoraxa ku yar marka maqaarkooda wuxuu u baahan yahay marka inay qorax si maqaarkooda uu qoraxdaas u qaato banaanka u jiijifaan waxayna garanaynin marka dhalinyaradan waxay u maleeyeen ilbaxnimo inay tahay dhalinyaro banaanka jiijifata ilbaxnimo ma waa qorax raadin xamara joogta 40 darajo maraysa qoraxda soo dhig wakaasadi marka waxa keenaya oo duruuftii xagga ka jirta inta kama jirto wadanku kulul yahay ilbaxnimana ma aha in akhlaaqdi laga tago banaan la jiijifto marka waxyaaba noocaas oo kala ah oo dhaqankeena ka duwan yani inayna aan ogaano dhaano war waxaan inaga dhaafa yani muslimaan nahay wixii dambi oo diinteena ay ogolaan hadii la sameeyo nolosheena ayaa halaabaysa intaan aakhirada la gaarin soo martaa inaad noolaataan oo nabad aad heshaan nabaddu waxay ku imaataa in yani dambiga la iska daayo hadii dambi la sameeyo dambigaas la sameynaayo ayaa nolosha halaynaya saas Ilaahay wuxuu yiri wadaru ka taga dhaafa wadaru iska daaya ظاهر الإثم دنبك كان موغضة وباطنه يكن قرصا إلا دنبيه الأولى بينقون كران وحب إلهي رالي كاهين ولا سمينا يدنبيه قار داد كم إذا بناك يكون سمينا ووح موغضون نقنايا وما قرصنا هيان كونوا بحيدان دادكو إن أركنه أن لا دومنه ومال عدلاء أن لا جلنه مركز مال عدلاء لجلايان أما هوتيل لجل أما بناك لصوص استاد إلهي أكتي سواء سقومت سواء منكم من أسر القول
ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارع بالنهار قف يعني هبين لا دونتي يمي قف بنان لا سو استاغ مالن عاد الى اكتيس وا اسku mid ee dambiga iska daaya wadaru dhaahira rasmi baadina hadaa iska day weydaan in alladheena yaksibuna al-ithma kuwa dambiga sameeya sayujzawna ma kanu yaqtarifun waxana ay kasbanayeen ee dambiga waa laga abaal marin doonaa taas waa midii aakhiro qofka haduu zinaysto ama khamra cabo oo ama uu la dhuunto ama uu meel la galo yani sayujzawna ma kanu yaqtarifun waxa ay kasbanayeen waa laga abaal marin doonaa taas waa tii aakhiro laakiin aakhiro intaan la gaarin ka hor adduunyada maxaa laga helayaa adduunyada waxa la helayaa horta inay nolosha isqaban weydo oo dambiyada dadka qaarkood ay sameynayaan inta aan sameynaynin xataa way saameyn doontaa maxaa yeelay dadku isku hal doonayay saarayeen saas ilaahay wuxuu yiri wa idha aradna an nulika qarya hadaan rabno inaan magaalo halaagno ilaahay haduu doono inuu magaalo halaago yani magaalo waxa laga wadaa dadkeeda ilaan guryaha maana waa dadka wax dambiga sameynayeen wa idha aradna an nulika qarya hadaan doono inaan magaalo halaagno amarna mutrafiha kuwooda xoolaha haysta ee loo barwaaqeeyay ayaan daacada ilaahay faraynaa markaas daacada ilaahay ma qaadanayaan ilaa maal bay leeyihiin maalkooda ay ku tumanayaan oo xumaan ku sameynayaan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha faasiqnimo daacada ilaahay oo laga leexdo ayay sameynayaan ilaahayna wuxuu iska daayo xumaata daacada ilaahay soo gala fisqiga iska daaya markaas ilaahay annaga adduunyada xogaagan aan haysano inaan ku raaxaysanaan rabnaayay ka taagan tahay raaxaysiga oo xaaraanta ah oo la sameynaayo wuxuu sabab u noqonayaa raaxaysigaana in la waayo oo la halaagsamo intii sameynaysay iyo in kale xataa aan sameynaynin oo dhibkaas agtooda lagu sameynayay inuu saameyn ku yeesho markaas waxa idaaradna nuulika qaryatan amarna mutrafiha kuwa loo barwaaqeen farayna fa fasaqu fiha faasiqnima ay sameynayaan fa haqqa alayha alqawl hadalki ilaahi ee ahaa dadku haday xumaadaan in nicmada ay haysan laga kala daadiyo ayaa ku waajibay fa haqqa alayha alqawl kadibna fadamarnaha tadmira magalaas waan baabiinayna marka inaga hadda tusaale iyo for example ma u baahnaba maxaa yeelay bal odayaashii hore weydiiye beledkan soo ahaan jiray meel kasta oo xumaatada ay ugu badnayd ama ha ahaato meeshii ribada lagu qaadan jiray bangiga ribada isticmaali jiray ama ha ahaato hoteeladii kalaabiyada ah oo lagu tuman jiray say u ekaadaan feeriyad meeshii dembiga lagu geli jiro dhan way ka foolxun tahay meelihii kale marka dulmiga la samaynayo dembiga la gelaayo wuxuu baabi'iyaa nolosha dadka marka maxaynu u baahannahay isbeddelka aynu rabnaay waa isbeddel nololeed waa isbeddel fikri waa isbeddel manhaj ma aha isbeddelku hebelaa meeshaan ka wareegay oo hebelaa meeshaan imaaday kanaa laga qaaday oo kanaa loo dhiibay arrintu ma aha waxay tahay systemka ama habdhaqanka ummadda in la bedelo fisqi iyo tumasho iyo xumaan iyo diin la'aan iyo diin la dirir iyo diin cay waan soo aragnay maxaynu ka dhaafnay burbur iyo halaag iyo rafaad maxaa loo baahan yahay fikirka intaynu bedelno inay dhaano diinteena aynu ku dhaqanno si noloshu inoogu hagaagto shariicada islaamka ku dhaqankeeda waxay la mid tahay jirka nolol ayay u tahay saas ayay wuxuu wakadalika waxayna ilayka ruuhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wala wa nafu ilaahay dadka soo gelinaya markii diinta lagu dhaqmo waxyaabaha dadku ay sameeysan ee qaanuunka wadciga iyo shariicada islaamka ku dhaqankeeda waxay ku kala duwan yihiin qaanuunka wadciga ilaalintiisa waxa laga rabaa ciidamo ilaaliyan loo helo oo dadku markay aaminsan waxaan wax diintii ma aha waa wax hebel iyo hebel ay sameeyaan oo laga dhuuman karo haday aaminsan yihiin markay arkayaan qofkii loogu talagalay inuu waardeeyo oo askariga ahaana way iska ilaalinayaan maalinkii ay waayaan askariga ilaalinayana war marka hore waxaan diin islaam ma ahayne way nagu dhibaayeene hawshan aan ka wadanay leeyihiin laakiin diinta islaamku saas ma ah diinta islaamku wuxuu ilaahay reebo yaad ka suwaysaa inuu ka ilaaliyo qof aad ka suwaysaa inuu ka ilaaliyo ma jirto ilaahay baa kuu jeeday oo kugu filantaa damiirkaaga ayaa ku ilaalinaya saasa markay u kala duwan yihiin asxaabtu ridwaana xilligay joogeen dadkii xumaata qofkii ku dhaca wax soo qaban jiray ma jirin oo askar soo qabata ma lahayn qofka asaga iskeeni jiray masaajidku imaanaya markaas rasuulka ilaahay waxaas arintaas ay ugu dhacday nina wuxuu sameeyay gabaru soo dhunkaday markaasuu nabiga intuu imaado rasuulka ilaahay isagu muuna faahfaahin wuxuu sameeyay maadaama wax gabar aan u banaanin uu soo dhunkaday yaa wuxuu yiri xad ayaan galay hal iga oofiyo nabigu shib ayuu soo yiri muuna barbaarin maxaad gashay maxaad samaysay muuna dheen shib uu soo yiri mar haddii wixii ayna cadayn oo asagu uu sheegtay asaga duu faahfaahin waa la arkayaa haduuna faahfaahin oo duubnaatana lama barbaarayo maxaa yeelay in oo ceebaha la asturaa fiican moogi in la barbaaro ma fiicno man satara musliman satarahu allah wa tuhdidku aha ninkii markii oo arintii sheegtay nabiga la joogo xoogaa
waxba talaabana laga qaadi waayey uu iska tegey markuu iska tegey aayad qur-aan soo degtay marka aayaddii soo degtay yaa waxaa ninkii ha loo yeero waa laga daba orday waa loo yeeray waxaa li salaada aan tukanaynay ma nala tukatay markaasuu haa waan ila tukaday haddaba aayaddan soo degtay dhegeysanay oo ahayd aqimi salaata darafay nahaari wa zulafan min al-layli inna al-hasanaati yudhibna sayyi'aat dhalika dhikra lidh-dhakiriin salaada tuko wanaaga aad samaynayso weysada iyo salaada waxyaabaha xumaatada ee ka dhaca ayaa lagaaga dhaafayaa marka falkii aad samaysay maadaama aad nala tukatay waa lagu dhaafaaliyay intuu farxaa wuxuu rasuulka ilaahay ma aniga kale igu egtahay aayadan oo falkaygii maadaama ay ka soo degtay ani lama ay khusaysaa mise ummadoo dhan ay khusaysaa markaas wuxuu ummadoo dhan ay khusaysaa bimaana inna al-hasanaat yudhibna sayyi'aat yani wanaag qof markuu sameeyo in oo laga dhaafayo dambiga wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliq an-nas bi khuluqin hasan wa tahdidku wa aha marka yani dadka qofkaas gabar uu soo dhunkaday askari arkaayo intuu soo qabtay nabiga u keenay rasuulka ilaahay ninkan saasu sama jirto damiirkiisa asaas keenay oo yiri waxa arintaas aan sameeyay marka qofka haduu damiirkiisa nool yahay yani diinta ilaahayna ay sida ay qabto loo sheego bis asaas ilaalinay laakiin waxa dhibaato inaga waa Soomaalida wax aqeedadeena aan ahayn ayaa mar walba kor kale inaga saaraya yani dadkan shariicadooda oo ay rumaysan yihiin in lagu xukumo oo loo kala dhaxbaxo way fiicnaan lahayd way isla qabsan lahaayeen laakiin waxayna islaahayn mar waxa la keenay shuuciyo markaas dadka qasab waxay la mid tahay midna waxyaabahan mabaadiidan kale ee islaamka aynan rumaysnayn ee shacabka korka laga saarayo ka waran ruux bin aadama hadii dhagax caloosha uu kaga jiro dhagaxu iyo jirkiisu isma laha qofkaas muxuu dareemayaa xanuun uu dareemayaa muxuu rabaa dhagaxa in laga saaro rabaa hadii laga saaro waayo dhagaxu uu ku jiro uu xanuunaya hadii laga saarana uu fiicnaanaya dhagaxan inuu meesha isaga jiro oo qofkan uu iska caadi iska aado maxaa diidaya jirkiisa iyo dhagaxan ayaan islahayn marka jirkii wuxuu sameeynayaa maadaama jismi qariib ah waxa asaga ka duwan oo gudaha ugu jiro wuxuu diidayaa waxaan ku jiro diidayaa marka xanuunka taas keenaysa marka ummadaani mar walba in dhagax caloosha loo geliyo ma ah oo waxayna rumaysnayn la yiraahdo waa lagu xukumayaa waa nooc kale moogtay aqeedada dadka aan ahayn markii loo geliyo marka dhagax dadkii xanuun ma deynaayo marka war dadkan maxay la xanuunsan maxaa ku dhacay maxay la xanuunsanayaan dhagaxa loo geliyo feere hadii dhagaxa laga deyn lahaa oo la dheelaa shariicadiina aad aaminsantiin iyo xukunkiina way isleeyihiin oo diinta islaamka sidaas ah qof walba diinta islaamka saas hadii la dhaho bas uu qaboobi lahaa dadka qaar waxa laga yiraahdaa sooyada diinta lagu haayo maalin walba isku wacdinayo hel waa nadari ayada waa la sheegay laakiin waxa rabaa ayada amali ah oo qofka wax xukumaaya iyo kan la xukumaayo qofka shacbiga ah iyo qofka dawladda kulli ay shariicadu wada hirgelinayaan oo diin loo wada socdo waa meesha lagu qaboobi lahaa laakiin dil ilaado shacab oo idinka diinta idinka idin koogiyay haye madaxdana madaxdu fasaxay qaateen oo diinta ay fasax kaga jiraan oo maxaa jira ma isma keenayso inaad dawladnimo noqoto oo rajul dawla inaad noqotiyo inaad diin ka shaqayso diin sheegto adduunku kaama yeelaayo marka saas daraadii hawsha inoo kala qaada in aan ka dhigno inaan diin wadanin in aan dhahno masaajidada iyo idinka diintina taas ma jirto waxa rabaa qofka madaxda ah iyo kan shacabka ah kulli in loo wada hogaansamo diinta yaa ayuha alladina aamanu soo lagu wada jiray yaa ayuha alladina aamanu udkhulu fi silmi kaafatan islaamka u soo wada gala si dhameystiran hadii kale afatuuminuna ba'd alkitab wa takfuruna ba'd ma anfa'ayso diinta marka meel fasax loo qaadan karo ma leh waxa rabaa wasaaradda iyo suuqa iyo jaamacadda iyo isbitaalka iyo iskoolka kulligood diintu sida ay qabto in loo wada socdo dadku markaas ay is aaminayaan qof walbana la aaminaya inta aad aragteen hada wadaadada uu lagu haayo la yira aaminayo wax kale ma ah waa inuu ku saabsan inta aan aragnay la dhaqankooda yaani inay waxoogaa rooroo yihiin oo meelaha qaar kood yaani wax loogu aamini karo oo saas oo ka yaani dadku hadii ay arkaan ummad hagaagsan annaasu ala diini muluki ma lilada dadku waxay noqonayaan madaxdooda u dhaqanto sayyidina umar radiyallahu anhu wuxuu dhigi jiray dadku intuu u yeero qoyskiisa waxaan rabaa inaan ka celiyo idinka waxa la idin soo fiirsanaya dad qoyskan tihiin shimbirtu sida ay hilibka u soo fiiriso oo kale hadaba wax dadka aan ka celiyay yaan idinku arkin idinka maxay idinka dadka leeyma tiidin Umar ibn Khattab qoyskiisa ayaa tiin inaga laakiin maxaan u naqaanaa qofkiiba madaxnimo iyo xaqaas iyo fursad u hela intii isku reerka ay yihiin ama isku qabiilka ay yihiin
waxaad maraysaa qaanuunka iyaga in kor looga qaaday oo leeyahay idinka maya idinku xukumi maaye dadka kale baa lagu xukumay say marka ku soconaysaa yaa ayuha alladina aamanu maxal isku ogyahay kunuu qawaamiina bilqisti shuhadaa lillahi walow calaa anfusikum idinka iska bilaaba walow calaa anfusikum aw alwaalidayni walaqrabiina in yakun ghaniyan aw faqiiran فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا مؤمنة داتين عدالة كوة الدلالة دمانتين ولو على أنفسكم نفتي نبعاته نفتي ناتم عنه وتحديث النبي صلى الله عليه وسلم ومديه روح يكوى لك سمين إذا سرق فيهم الشريف تركوه قف أو مال في عن كسو جيده هدوه وحاوه ويسكدها في جرين وإذا سرق فيهم الضعيف وأقاموا عليه الحد قف ضعيف وهو تبرير أو غير بدن أن كسو جيدينه أن لقاه بيسين هدوه وحضنه أقاموا عليه الحد كاسي حد كوه فينايا وأيم الله لو سرقت فاطمة بنت محمد إلهي بان كنا عرتي قبل إذا فاطمة هدي حده ما بحضيس لكن كما السوقات هدي حده لقضعت يدها قعنتها كقوينها يا ما أنا نبي على رأي كل لحظة ما جرته ساس مركا أنتم النقطة مركا سيداتكم أمانه يسأمنت يداعدنمو يقبولان هل كاس لقيه لايا لكن مركا النقطة قفل بك كانتو فيريو وريل ساسو سمايا كان ساسو سمايا كان ساسو سمايا كان ساسو سمايا أو يعني وحي الشرع وقبي أن لقوه سعنين culays lagama baxaayo dhibna lagama baxaayo marka si looga bixi lahaa waa islaamka oo lagu dhaqmo oo yaani jiilka soo socda harma inta taariikhda akhriyaan wixii lagu baabay ee lagu halaagsamay inta iska daayaan nolol cusub oo diinta ku salaysan oo qof walba dhinaciisa uu ka ilaalinayo wixii lagu leeyahay oo ka dhiibay wixii lagu leeyahay wixii ummadda xaqeeda marayna uu ka nabadgelinayo markaas ayaa xal iyo nabad la helayaa marka dambiyada kuwa muuqda iyo kuwa qarsanba إلهي وحين أمرها إلى إسكدينه وذروا كتجا ظاهر الإثم وباطنه قفل بس لا يسوي مرك قفل والدي يسوي نقد دم بيعت سمايسو ما مد مقدام سما ومد قرصن كم مقدام هداد كجرتنا كبح هداد مد مقدام كجري لكن مد هو ساعد كجرتنا مد كهو سكبح هذا جنا إلهي أكتي سو أسكمت كان مقدام يا كان هو سيا كان قرصن يا كان بناك لصوده إسكمت منافقين تو حلقوت المحالي يستخفون من الناس ضدك إسكقرنايان ولا يستخفون من الله إلهي كما قرنايان مركو حالها إلهي إن لك عبصد موجود إن لك عبصد معها إلهي توفيق لهنا وافجيو ومدي أن إلهي خير كوافجيو دبات الله كقاضو نبض عام الله يلوسو دجيو